السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay halkan inaan kugu soo gudbiyo cashar ama aqoon isweydaarsi aan xalay la yeeshay aqoon-yahano bahda caafimaadka ee joogta Puntland. Marka imaysa suuragelin xalay recordingkii inaan live u duubo oo marka haddii la record gareeyo xitaa ma aan ahayn mid live oo la heli karo documentationkaasi oo si aan ummadda ula share gareeyo. dad badan baa iga soo codsaday oo doonaya inay ka qayb qaataan ama ay maxaa la dhihi jiray ay helaan copy. Marka waxaan doonay inaan dib u sameeyo si aan dad badan oo aysan u suuragelin aan ula wadaago. hadduu alla idmo waxaan idinla wadaagayaa marka hawshii oo aan jeclahay inay noqoto mid ummadda ay qofkii dan kale ama doonaya in uu ka faa'iidaysto fursadda tan uu u helayo daawado dib u daawado la daawado hadduu doono arday. muhiimadda aynu ka leenahay barnaamijkan haddaynu nahay Somali Health Board haddaan nahay Maxamed Cali waxay tahay aqoonta yarta Allah subxaanahu wa tacaala kugu galladaystay waa maxaa la dhihi jiray in la sheer gareeyo. haddii ummaddu aysan u istaagin inay iyadu maxaan ku raada isgaarsiiso aqoonta waxay noqonaysaa mid ummadaasi ummadaha kale ka hoos marta. marka barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay tallaalo badan baa wadankii la geeyey. tallaalada wadanka la geeyey waxaa ugu horreeyay AstraZeneca. waxaa ku xigay tallaalo kale oo aan u malaynayo inay dowladaha ama Ruushka ama dowladda maxaan ku rahdaa China ay ugu deeqdo Soomaaliya ama Sinovac ama Sinopharm marba warbaan maqlayaa. waxaa kaloo jirta in xitaa tallaal Ruush oo gamaleeya xitaa in la geeyo waa dhici karaysaa. waxaa kaloo hadda ugu dambeeya Johnson & Johnson oo Soomaaliya la geeyay. marka intaasoo tallaalo oo kala nooc ah oo haddana tiradoodu ay xadidan tahay ayaa wadankii tegey oo wadankii loo kala qaybiyey maxaan ku rahdaa gobollada dhan. marka arrintaasi waxaan doonayaa in aan maxaa la dhihi jiray si dadkuna ay wax uga fahmaan oo dadka aan la hadlayna waa dad cilmiga caafimaadka bartay ama public healthga kuna shaqo leh si aan ugu dhiirigeliyo in awoodooda iyo fahamkooda iyo capacitygooda iyo diyaargarowgooda iyo qaybinta inay qayb ka noqdaan maxaan ku radaa barnaamijkan runtii ay u saacido oo cudurkan xal looga gaaro waddankeena. walaalayaal waxaan jeclahay marka hore in aan ilaah waroon yahay daatada noocan oo kala marka maalin kasta ee wasaaradda caafimaadku ay nala wadaagto runtii waa arrin ay ku tusaysa murugo annagoo ka fog wadankii. tusaale ahaan bisha 28keeda oo daraad ahayd 2 maalmood oo ka horreysay dadkii baaritaanka lagu sameeyey oo 3205 ahaa 194 qof baa positive ahaa. gobolladuna way qaybsadeen hadday noqoto Banaadir iyo Puntland iyo Somaliland Galmudug iyo Jubaland iyo South West. dhammaan gobolladii waddanka waxaad moodaa inay sinmayaan oo nin waliba qaybtiisu ka qaadanaya hadday noqoto cudurka faafidiisa oo cudurka si looga helayo hadday noqoto geeriduna. marka waxaa maalin kastaba aynu arkaynaa 15 qof baa dhimatay 20 baa dhimatay. dadka iyagu 5 ilaa 15 iyo 20 bay maalin kastaba u dhimanayaan. cudurkii sidaasuu u dilanayaa. waxaase weli maxaan ku rahdaa aan xal loo hayn intan taariikhda ah ama sidaan ogahay dad badan ay iga sheekeen inta hadda la leeyahay nambarkan waa baaritaanka ah isna ma aha nambar sugan oo wadankii inta la baaray dadkii at-riskiga ahaa ee arrintan cudurka looga baqanayay laga helay may aha. waa dad dhici karaysa una badan sida ay dad ka yimid hadda ii sheegeen dad sudcaalaya oo waddan ka soo safrayay oo ay qasab tahay in ay isa soo baaraan oo ay ku soo raacaan diyaaradda. dadkaas unbaa maxaa la dhihi jiray baaritaanka maraya. ummadda inteeda kale wax baaraya iyo cid isbaaraysa iyo cid ka mas-uula baaritaankeeda midna ma jiro. markaasaa 17,000 oo qof baa leeyahay ilaa ay hadda Soomaaliya inta soo martay. sidaasaa ugu qoran hay'adda caalamka sidaasaa ugu qoran Johns Hopkins caalamka dhan uu la ogyahay. maxaa yeelay waa inta keliya la report gareeyay. waxaa jirta tiro intaa 10 laab ka badan oo aan la qorin oo dadkeeda ay positive noqdeen qaarkoodna ay u dhinteen qaarkoodna maxaan ku rahdaa ay la ildaran yihiin ilaa iyo hadda. marka hadday sida arrintu sidaa tahay marka maxaa xal noqonaya
cudurkan cayaar maaha adduunku wuxuu yimid laga soo bilaabo bilowgii 2020 dhammaadkii 2019 buu caalamka ku soo kordhay laakiinse maalintii uu caalamka ku soo kordhay ee Wuhan sida la leeyahay uu ka yimid ilaa iyo wixii ka dambeeyay hadda tiradu waad garanaysaan inta qof ee gala uu galaftay inta uu ku dhacay iyo inta uu laayay taariikhdu way caddahay waa qoran tahay sanadii hore 2020 dhibku nagu hay waad garan kartaa waxaad kaloo garanaysaan maxaan ku raahdaa inagu meesha aynu joogno 2020 oo sanad dugsiyeedkiisii bartamaha ama qaybtii labaad ayuu kansalay oo uu bedelay maxaan ku raahdaa from in person ilaa iyo in maxaan ku raahdaa virtual education ay noqotaa 2021 dhammaantoodna iskuulku waxaynu ku qaadanay maxaan ku raahdaa ilmaha iyagoo ay ku qaateen in ay ku dhigtaan maxaa la dhihi jiray online sanadan aanu ku jirnana oo hadda ay tahay next week in iskuulada ay noo bilowdaan innaga agtayada afrikana way dhici karaysaa in wiigan iyo wiigii hore iyo muddo hadda uu iskuulka u bilowday ama September kolle mar buu bilaabanaya iyana waxaa loo baqanayaa in iskuuladaasi aysan noqon kuwii maxaa la dhihi jiray sida loogu talagalay ku bilowda kuna dhammaada maxaa yeelay cabsida caalamku ula way taagan tahay waxaa intaa barbar socda dadaalo badan oo dawo ah dadaalo badan oo tallaalo la soo saaray oo ciidaa ka badan si wax looga qabto cudurkan in wax laga qabto ayaa iyana socday dhaqangalay haddana caalamka dhaqangalaya oo balaayiin doosis oo tallaalo kala nooc ah oo ay Pfizer iyo Moderna iyo Johnson iyo kuwa kale ay ku jiraan iyo AstraZeneca ayaa caalamka sidaas u dhexgalay waxaase lagu kala hormaray wadamada qaniga ahna dadkoodii way tallaasheen boqolkiiba majority dadkoodii fully vaccinated bay u yihiin kuwana maxaan ku rahaa tallaalkii weli maba gaarinba kuwana wadankii 1% dadkoodii bay gaareen sida Soomaaliya wadankeennii oo kale dadka yagii 1.9% ee dadka yaga ee tallaalka eligible ku ah ayaa ilaa hadda qaatay taa maxay ka tahay markaad aragtay nambarka noocaas oo kale runtii waa cajibaysa marka waxaan doonayaa sida ay wax u dhacayaan wixii laga qaban lahaa iyo aqoonta noocaas aan doonayaa in aynu isweydaarsanno Mareykanka kol tusaale ahaan waxay maraysaa 440 milyan oo doos in maxaan ku raahdaa ay yaalin already clinicyada iyo meesha loogu tala dadka la geeyay oo ay 370 milyanna ay garbaha dadka ay gashay already oo dadkii la wada muday oo ay boqolkiiba 70 ku dhawaad ee dadka Mareykanka ay tallaalada qaateen meelaha qaarkood meelaha hadda inagu ina joogno cid kastaba ee deegaankeena joogta madow iyo cadaan iyo carab iyo cajamba dhammaantood ay 70% oo dadka eligible ku ahaa ay qaateen goobaha qaarkood way jiraan oo aad u hooseeya taasoo average-ka markaasi ka dhigaysa mid hoose laakiin waxaan kuugu sheegayaa waxay tahay cudurkiina waa jiraa isagoo islaan rogaya noocyo badan noqonaya marba maxaan ku raahdaa qaabtiisa iyo sidii cudurku u dhalanayo faafidiisa iyo waxa uu keenayo ay ka sarreyso sidii hore dadaalo badanna way jiraan oo tallaalku uu ka mid yahay marka arrinta aan doonayo maantay in aan idinkala hadlaa waxay tahay tallaalku waa kee tallaalku waa COVID-19 ma hal tallaal la dhaha jira may tallaalo ciidda ka badan oo 150 ka soo bilowday candidates ayaa waxaa hadda dhaqan galay tallaalo ilaa iyo hadda tallaalo farakutirisa ayaa caalamka ka dhaqan galay oo shaqaynaya marka kuwa ka mid ah ee waddankeeni la geeyey ayaan doonayaa inaan wax ka bidhaamiyo walaalayaal qofku waxaa muhiim marka hore inuu fahamsan yahay tallaalku waa cilmi science waxaan uga jeedaa haddee tallaal ama dawo si loo helo dawadan hadda aan kula hadlayo si loo soo saaro maxaan ku raahdaa qofna intuu maxaan ku raahdaa maalin ku riyoodo habeen iskama maxaan ku raahdaa wakadyo kuma soo guri karo kadibna ummadda uma soo daabuli karo waa process dheer oo research and development ka bilaabanaya oo maxaan ku raahdaa phases kala duwan maraya waayidii hore waxaa la mari jiray preclinical iyo laboratory animals tallaalkan wuxuu kaga fiicnaa laboratory animals lama marayn sababtoo ah dadkoo idilay waxaa la siiyey meel ay ka bilaabaan macnaha meel laga wada bilaabo ayaa la siiyey markii Wuhan laga helay cudurka database-ka dadku ummadda dhan ay ka wada helayso ayaa waxaa la dhigay sequence-ga maxaan ku raahdaa cudurka wuxuu yahay ee viruska cudurka dhaliya
dee qof kasta wuxuu xaq u lahaa inuu qaato dabadeedna uu aqoonteedii u gashto kadibna wax ka soo saarto nin waliba wax buu la orday markaasi sequencigaasaa la isticmaalay marka starting point ayaa ummadda dhowda lahaaya caalamka jaamicaadka ku yaala hay-aadka kuwa privateka ah kuwa publica ah ilaah waa ku roon yahay iyo intaasoo pharmaceutical companies ah nin waliba wuxuu u saciyey u orday sida uu maxaan ku radaa wax soo saaran lahaa hadday noqon lahayd immunodiagnostic wax lagu baaro cudurkan sequencigaas laga faa'iido hadday noqon lahayd ilaah waa ku roon yahay dawo oo cudurkan wax looga qabto hadday noqon lahayd tallaal oo ka hortag cudurkan looga hortagaa marka processka dheer ayaa waxaan doonayaa inaan isla fahmo haddaad fiirisid research and development preclinical studies laba mari laakiin phase 1 phase 2 phase 3 baa loo degdegay dabadeedna waxaa la marayaa xilli oo approval la siinayo maadaama waqtigu aad khatar u ahaa sababtoo caalamka dhan buu qabsaday cudurka dabadeedna hadda sheekada dheer waad ka dhegsan tahay waanu soo marnay waa marqaati baynu u ahayn lockdownkii dhacay iyo meelaha qaarkood ilaa hadda lockdownkii aysan kaba soo kaban iyadoo taa ay jirto ayaa waxaa dhacday markaa emergency use authorization in la siiyo shuruuc baa la soo rogay maadaama baahi aad loo qabo dawo kastoo cudurkan wax ka qabanaysa tallaal kastoo cudurkan wax ka qabanaya in xitaa aan looba sugan sanawaad oo lagu baaro waa in degdeg si dhaqsi ah wax looga qabto iyadoo maxaan ku rahdaa markii horeba starting point ee mararka qaarkood dhacaysa in sanawaad lagu soo gaaro dadka dhan ay haysteen meesha baa laga bilaabay dabadeedna cilmi baaristii baa dhaqan gashay balaayiin lacag baa lagu shubay dowladda Mareykanka ka soo qaad Johnson & Johnson intaasoo lacag bay ku bixisay hadday noqoto tallaalada kale ee Moderna ay ka mid tahay lacag badan oo balaayiin dollar AstraZeneca ka lacag baa la siiyey lacagtana qaata intaan balaayiin dollar wax soo saara jaamacaadka sida baa lagu yiri ha ahaatee ala kulli xaal wixii waa la soo saaray wixii miiska marka la soo saaray process dheer oo sida ku imaanaya weeyaan tallaal kasta oo aad arkaysa miiskaaga imaanaya ee iridka lagu keenay ama garabkaaga aad doonaysa inaad ku qaadataa process dheer oo nidacaas ah oo lacag ay ku baxday oo approval soo maray weeyaan ha ahaatee marka kadib cilmi baarista aan ka hadlayo tusaalahan cilmiga aan ka hadlayo waxay tahay Johnson & Johnson waa clone oo AD26 oo coronavirus spike protein ka dhaliya DNA ah oo vector DNA ah tusaale ahaan dadka yaqaana maxaan ku recombinant DNA waxaa jirta waxa loo yaqaano plasmid oo maxaa la dhihi jiray DNA oo ka samaysan maxaan ku rahdaa ilaah waa ku rooyahay adenovirus oo virus ah oo la kadgareeyay kadibna meel oo promoter expression leh inta la suro kadibna proteinkaas ee fragmentigaasi ee soo saaray spike proteinka ayuu soo afuufaya waa tijaabo hore loo sameeyey cudur badan hore loogu sameeyey la baaray inagoo xitaa aynu laabab ku soo qaadano cilmi baarisna aan ku sameynay markaanu graduate school ku jirnay marka waa soo gaabinaya ina qaarkiin waad ka dhegsantihiin maadaama dhakhaatiirtii iyo howlwadeenadii caafimaadkaa tihiin marka koloonka noocaas oo kale ayay Johnson & Johnson ku bees gareeyeen talaalkooda halka Sinovac oo kale tusaale ahaan Sinovac maxay sameeyeen Sinovac waxay sameeyeen inactivated viruskii bay qaateen oo asaga inactive ay ka dhigeen maxaa yeelay barnaamijkan oo tallaalada waagooda waxaa la isticmaali jiray ama live attenuated ayaa la isticmaali jiray viruskii ama bacteriada oo live ah inta maxaan ku inactive laga dhigo ama attenuated laga dhigo la daciifiyo oo viruska sidiisii ah si maxaan ku proteinada dushiisa surface antigenka iyo dhammaan looga helo ayaa la isticmaali jiray waxa cudurada loo isticmaalo caanka ah oo taqaanaan oo qof kasta uu qaatay cudurka jadeecada ka mid ah waxaa ka mid ah maxaan ku rubella iyo mumps MMR ka loo yaqaan kuwaas dhan waa maxaan ku raahdaa waa live attenuated oo waxaa kaloo chickenpox oo kale waa ina live attenuated laakiin hadda waxaan tusaale u soo qaadanayaa nidaamka suu ahaan jiray inaad ila fahamtid si aanu ay sahal noogu noqoto waxaanu ka hadlayno waxaa kaloo jira iyana maxaan ku raahdaa kuwa poliyada oo kale waa inactivated ayaa la isticmaalayaa kii cudurka dhalinaya ee poliyada keenayba in heat inactivated inta lagu siiyo ama killed la dilo ayaa inta laga soo buuxiyo maxaan ku raahdaa gasacdo iyo meesha hadda syringe lagu soo duro ayaa ama afka laga siinaya ama saa lagu siinaya ujeedada waxay tahay inaan ku fahamsiiyo in kuwaasiba sida haddii aad og tahay weeyaan haddii kuwaba aad ka dhagsan tahay ama aad qaadatee ama aad qaadan doonto ama reerkiinu ay qaato
sida kuwa loo soo dhirindiriyay ayaa kuwana sidaas loo sameeyay Sinovac sidaas ku yimid AstraZeneca sidaas ku imaanaya AstraZeneca oo kale isna waxa weeye chimpanzee adrenovirus virus ku dhaca daanyarada oo la yaqaan ayaa inta maxaan ku raada la qaado oo deficient replicating aanan maxaan ku raada asaga aanan replication samayn karayn ayaa inta la geliyo maxaan ku raada segmentiga DNA-da oo vector DNA-ga ayaa soo saaraya nimcadaas borotiinka noqonaysa tallaalka marka cilmigaasi aadka daqiiq u ah bay isticmaaleen laababku ay isticmaaleen aqoonyahanadu ay isticmaaleen jaamacaadka ay isticmaaleen maxaan ku radaa hay'adaha pharmaceutical companieska tusaale ahaan haddaan kuu sii jilciyo Pfizer iyo biotech waa naqaanaa waa hay'ad maxaan ku radaa company cusub oo biotech ah oo Germany ku yaala kadib markay soo saareen oo dad maxaan ku radaa asalkooda Turkiga ay leeyihiin markay soo saareen kadibna Pfizer ay kala wareegtay oo ay idina maalgelisay taasi sheekadaas oo tidhirtay dhowr horena waa uga hadalnay Moderna oo kale Mareykanka hay'adda NIH-ka ayana ay hanti iyo aqoon waxay lahayd ay dul dhigtay iyagu waxay isticmaaleen platform ah messenger RNA-gu waxay tahay hadda sida proteinka loo soo saaro ee ah from DNA to RNA messenger RNA oo marka expressionka sida maxaan ku radaa iyo transcriptionka translationka uu dhaco in marna la soo saarayo kadibna maxaan ku radaa proteinka translation loo sameynayo habka noocaas oo kala fariin la saaray bay qabanayaan fariintaasi baa inta la nidaamiyay teknolojiyadaas la isticmaalay dabadeedna qofka korkiisa inta marka lagu mudo qofkii jirkiisa loo isticmaalayo inuu asagiiba warshadii noqdo ee soo saaraysa proteinka marka farsamadaasi caqli badan baa galay xoolo badan baa galay marka waxayna soo saareen tallaalo noocaas oo kala ee caalamka ka dhaqan galay ee qaarkoodna hadda sidaan FDA hay'adda caalamka ee Mareykanka u qaabilsan Food Drug Administration ama WHO-da hay'adda u qaabilsan SAGE approval siiyeen oo ay yiraahdeen yes waa la isticmaali karayaa marka tallaaladu habkaas ku imaanayaan nidaamkaas iyo hantidaas iyo aqoontaas baa ku baxday dabadeedna hadda waxaa dhacaysa in ay adigu ku yimaadaan wax su'aal ma qabta may ka soco marka tallaal sidiisaba inuu shaqaynayo waxyaalaha la doonayo qofka dhakhtarka aqoonyahanka dadka ardadeenna maxaan ku radaa caafimaadka ama qof kastoo caadi ahba la doonayo inuu fahmo waxay tahay tallaal muhiimadiisu waanu fahmnay oo ah in qofka bini'aadamka oo jirkiisa uu geliyo tababaro si uu isaga dhiciyo berito markii cudurka ku yimaado mar haddana saa u fahmnay marka waxyaalaha laga fiirinayo waxay tahay efficacy-ga tallaalkaasi tallaalka markuu soo maray clinical studies-ki waxaa la fiirinayaa marka numberkan loo yaqaano 85% 70% 90% that efficacy number haddii uu yahay for above 50% and above maxaa yeelay chanceska waxaa la diidayaa hadday 50-50 tahay hadda waxaasi waxay ka dhigan tahay haddii la imuday iyo haddii aan la imudinba maxaan ku radaa protectionkiisu waa isla eg tahay laakiin hadduu 50 ka sarreeyo oo at least aad helaysa 60% at least aad 70% chance oo protection ah oo 80% oo 95% sida maxaan ku tallaalada badankooda ay Moderna iyo Pfizer ay yihiin waxaasi dhan waxay kuu sahlaysaa in aad fiirisid efficacy-gaas waxaa kaloo muhiim ah iyana dooska la qaadanayo iyo inta u dhaxaysa ma hal doosba mise waa laba doos haddii laba doos ay tahay intee baa u dhaxaysa ma 2 week mise 3 week mise 4 week mise 10 week mise 12 week sida maxaan ku radaa AstraZeneca oo kale 2 week waa sida Sinovac oo kale hadday tahayna maxaan ku radaa Moderna iyo maxaan ku radaa Pfizer oo kalena inta u dhaxaysa Pfizer waa 3 weeks 21 days halka maxaan ku radaa midka kale Moderna 4 week ay tahay 28 days sababta looga dhigayo maalmahaasna waxay tahay cilmi baaristii la sameeyay tajribadii la sameeyay ayaa sidaa loo isticmaalay day 1 ayaa talaalkii la qaatay kadibna experimental group iyo kuwa kale control groupkaba waxaa la siiyay maalintaas ayaa la siiyay kadibna natiijada lagu sheegay lagu faraxsan yahay lagu faanayo ee lagula soo shaqo tagay ayaa waxay ahayd sidaas ay ku timid then kadib they have to recommend this is waxaanu sameynay waxaana ka soo baxay sidaan haddii la sameeyna sidaan baa ka soo baxays weeyaan marka adigu chanceska aad wax kaga bedshaa
way yar tahay waxaa kaloo muhiima iyana in talaalka uu shaqaynayo oo uu dadkana maxaan ku la doonaya in la fahamsiiyo waxaa kaloo muhiim ah storage isna waa very important haddii DNA laga sameeyo sida hadda kuwa hadda aynu hayno oo AstraZeneca iyo maxaa la dhihi jiray ilaah waa ku raa Johnson & Johnson oo kale ama Sinovac oo inactivated oo virus laga sameeyo oo kale easy to handle bay noqonaysaa waxaa temperature caadi ah oo ilaa iyo 4 degree ama ilaa iyo maxaan ku raahdaa 8 degree ayaa lagu hayn karaa oo centigrade ah ama 39 ilaa iyo 42 46 degree Fahrenheit waa marka la doonayo in meel la dhigo la storage lagu sameeyo la maxaan ku raahdaa fridge caadi la geliyo fridge-da caadiga ah laababka yaala ama clinic-yada yaala kuwaasa ku filan laakiin markay noqoto RNA messenger RNA kuwa ka samaysan iyaga waxay u baahanayaan ultra cold aad u qabow oo -20 -70 degree ayay u baahanayaan taasoo runtii wadamada qaarkood ay ku adag tahay inay helaan ama infrastructure-kaasi inay haystaan way ku adag tahay waa laga yaabaa in maxaan ku raahdaa jaamacad ama hal maxaan ku raahdaa isbitaalka dhanba uu leeyahay hal freezer noocaas oo kale way dhici karaysaa laakiin wadamada qaniga ah horumaray waa balli buu ka yahay agtooda iyana taasi waxay ka mid tahay storage-ka arrin critical oo loo baahay dadku inay fahamsan yihiin waxaa kaloo muhiima iyana talaalkan haddii uu protection ba leeyahay protectionkaasi muxuu difaacaya isbitaal dhigista isbitaalka miga celinaya ma loo jiranaya haddii loo jirado isbitaal ma loo seexanaya haddii isbitaal loo seexanaya geeri ma jirtaa waxaasoo dhan ayaa muhiimayana waxaasoo dhan ayaa muhiima marka qofna in maxaan ku raahdaa waxaas dhan laga protect gareeyo ayaa muhiim ah oo u baahan in waxyaalaha considerationka talaalka dhammaantood talaaladu ee aan halkan kaga hadlayo iyo talaalada aad aragteenba dhammaantood waa isaga mid markay noqoto isbitaal dhigista iyo geeriduba waxa weeyaan waa 100% ayay protection bixinayaan marka waxaa muhiima markaasi marka aynu soo dhaafno barnaamijkaas aan ka hadlay ayaa talaalkii ciddii soo samaysay ay waxay u gudbinaysaa hay-aadkii markaas ayaga maamulayay tusaale ahaan maraykanku kale hay-adda FDA baa loo gudbiyey oo approvalka siinaysa hadday noqoto caalamka intiisa kalena WHO baa iyana maxaan ku raahdaa siisa emergency use listing oo ah waa la isticmaali karayaa maraykanku kale FDA waxaysan siinin maxaan ku kama shaqaynaya maraykanka 3 kaliya ka shaqaynaysa oo Pfizer Moderna iyo AstraZeneca maahan Johnson & Johnson AstraZeneca maraykanku ma aysan siin maxaan ku raahdaa approval saddexdaas intaasaa nagu filan yiraahdeen hay'adda caalamka u qaabilsan dunida ee WHO-gana iyana ilaa iyo way list dheer bay leedahay oo inta aan sheegay ay ka mid tahay oo 2 Chinese ay ku jiraan kuwa kale ay ku jiraan marka kuwa hadda ina soo gaaray dhammaantood waxay haystaan hay'adda caalamka WHO emergency use listing bay haystaan processka dheer markuu talaalka marna sida hadda Pfizer oo kale waa talaalka kaliya ee full approval ka haysta Mareykanka ee FDA waa full license-kiisu waa dhammaystiran markii malaayiin qof ay qaateen oo aysan waxba ku noqon haddii ay wax noqdeenna ay tahay wax oo maxaan ku raahdaa minimum aad u yar oo maxaan ku raahdaa maxaan ku wax la sheega aysan ahayn oo faa'iidadiisu ay ka badan tahay 99.5% khasaarihiisa marka taasi waa marka daatadaasi la fiiriyey safety-giisii wax kasta ay u dhammaystiran tahay ayaa full approval la siiyey Modernana hadda way u apply garaysantaa inay full approval ka heshaan kuwa kalena way soo raacayaan iyana saas oo kale helaan marka Johnson ku yimid ilaa hadda wuxuu haystaa maxaan ku raahdaa authorization maxaan ku raahdaa emergency use authorization ama listing caalamka dhan ka shaqeeyay balaayiin doosna la sii bixiyay ama malaayiin doos la bixiyay caalamka dadku ay qaateen walaalayaal waxaan ku soo celinayaa marka talaalada aad arkaysaan idin yimid dhammaantood haddii hay'adda WHO ay siisay waa la isticmaali karayaa that is number 1 emergency use listing haddii WHO ay siisay hay'adda caalamka u qaabilsan caafimaadka ama Mareykanka ama wadamada aad joogtaan ama dowladdaada waddankaagaba Soomaaliya oo kale haddii hay'adeennii u qaabilsanayd inay maxaan ku raahdaa arrintaasi doorka nooc yarto haddii approval siisay waxa weeyaan waa wax lagu qanco laguna maxaan ku raahdaa in la aamino ah
marka dhammaan waxaad ogaanaysaan dhammaan kuwa laysanka noocaas haysta they are safe waa safe waa lagu badbaadaya effective weeyaan way shaqaynayaan waxayna yaraynayaan in xanuun zaa'ida oo cusbitaal dadka dhiga ama geeri ay dhacda dhan hoose u dhigayaan waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego tallaalku hadduu ka samaysan yahay DNA iyo haddii uu ka samaysan yahay messenger RNA-ba dhammaantood inay safe yihiin oo loogu talagalay bini'aadamku inuu qaadan karayo maxaa yeelay wax ay DNA-daada oo wax ka bedelayaan ma jirto wax ay microchip iyo wax la yiraahdo kugu sameynayaan ma jirto RNA ama messenger RNA kuwa laga sameeyay sababta loo sameeyo loogu talagalay waxay tahay they only deliver information and the vaccine teaches your body how to make a protein that triggers an immune response dadka qaarkood baa waxay leeyihiin oo mar kastaba DNA-du wax yeelaya warkaas wax kama jiraan maxaan ku radaa chip baa ku jira warkaas waxba kama jiraan sababtoo ah annaga practically kan ma aanan qayb ka ahayn laakiin kuwa lamid ah sameynay isticmaalay DNA kala rognay kala jarjarnay cloning and characterizing then kadib dadkani taasaa la isticmaalay sanadihii ugu dambeeyeen 40 sano ugu dambeeyey ayay teknolojiyadan shaqaynaysay oo waddamaduna ay u kala horreeyeen waxaan kaloo jeclahay tallaalka hadda la keenay Soomaaliya gabi ahaan oo ay ka mid ka yihiin ilaah waa ku reeyay Johnson hadda dawladda Mareykanka ay ugu deeqday dawladda Mareykanka waxay sameysay doses iyagu ay sameeyeen bilaayin dollar ay ka bixiyeen oo ay xaq u leeyihiin ayaa markay arkeen baahidoodii inay dabooshay Moderna iyo Pfizer ayaa waxay yiraahdeen bal hay'adda buuqan uu ku batay oo caalamka intiisa kale saa u soo fiirinaya Mareykanka ay leeyihiin war dawladkii maxaan ku horumarow idinkiiba wuxuu isu koobayo markii la yiri ayaa waxay dhaheen bal qeyrada ha naga yaraato marka ayaga arkay at least annagu maxaan ku radaa waa isku filnaanaynaa qaybaha kuwan nagu filnaanay ayaa waxay ku deeqeen malaayiin barnaamijka ee hay'adda caafimaadka ee COVAX facility la yiraahdo ayay oo dadka u iibiya jumla ugu iibiya kadibna gada marka qaarna donation qaadaan oo caalamka shirkadaha ay sameeyaan cashuur dhaaf ay ku helaan qaarna maxaan ku radaa ayaga u iibiya lacag ay urursadeen oo ay caalamka ay maxaan ku radaa ay wadamada aan isbixin karin oo Soomaaliya ka mid tahay inay siiyaan marka annaga tallaalku sidaas u noogu yimid ama lacag nala siin lahaa ha noogu xisaabiyo ama fariiba ha noogu yimaado sidaas cala kulli xal noogu yimaado AstraZeneca inoo yimid oo 120 miyuu ahaa mise 1.2 milyan dos baan ogaa oo loo ballan qaaday Soomaaliya ay qayb u xireen tiradoodii meel ku dhibacday iyo inta timid kolay Windows-kii ugu horeeyay iyo qaybtii shipment-iga labaadna way timid waa ogaa goboladana waa loo qaybiyay Johnson baa hadda ugu dambeeyay Sinovac iyo Sinopharm iyo maxaan ku raadaa iyo Gamaleya intuba waa la sheegay wadankii inay tagaan oo wasaaradda caafimaadka federaalka ay gacanta ku dhigtay goboladana la kala gaarsiiyay marka maxay sameeyay dadka yagii adiga dhakhtarka ah adiga aqoon-yahanka adigan maxaan ku raadaa aan weli tallaalka qaadan su'aasha aad qabtaa ee weli ku taaganay maxay tahay waxa aad raadinaysay ka maqan ee ama aad shakiga ka qabtaay muxuu yahay waa su'aasha la isweydiinayo tusaale ahaan waxaan jeclaan lahaa dadku in aynu isla fahamno oo aynu ka wada dheregsannahay waxaynu ka hadlayno tusaale tallaalkan oo kale waxaa muhiima dhaladaasi markay timaado waxa gudaheeda ku jira in aynu isla fahamsannahay iyo dooska waxa uu yahay kalarkiisu waxa uu yahay kuwa qaarkood haddii handlingkeenna ama temperature wax iska bedelo isbedel baa ku imaanaya kalarka marka anigu bakrintaan aad ku qabo waxay tahay dadka iyaga ee haddii aan fully train ama tababar fiican la sameyn ee tallaalka handle garaynaya ama bixinaya ama store garaynaya ama kala rogrogaya maxaa yahay aadkan ugu deeqaya contractor la kala saxiixanaya ee ah anigu waa kugu wareejiyay wixii halkan ka dambeeya adaa ka mas'uul ah hadday tahay wasaaradda caafimaadka federaalka hadday tahay wasaaradda caafimaadka ee dowladaha qaybta ka ah ee dowladda Soomaaliya intuba haddii ay documentationkaas ay saxiixin cidna wax siin mayso wixii hadda ka dambeeya adaa ka mas'uul ah ha noqoto marka waxaa muhiima marka Johnson oo kale dhalada arkaysid waxaa gudaheeda ku jira 5 times 10 ku jibaaran oo virus particles ah oo macnaha vaccine particles ah
ilaah waa ku run yahay Sinovac iyadana 3 microgram oo maxaa la dhihi jiray waxa ku jira oo magaciisi ah inactivated vaccine-kii ah oo viruskii ah ayaa 0.5 milliliter kaasi gudihiisa ku jira waxaa kaloo u dheer ingredient-iga oo inactive-ka ah talaalka ka dhigaya maxaan ku rahdaa hawsha uu qabanayo hadday noqoto maxaan ku rahdaa hawshii loogu talagalay talaalka tusaale ahaan midka hadda aynu Johnson oo kale waxaa ku jira maxaan ku rahdaa citric monohydrate trisodium citrate dihydrate ethanol 2-hydropropyl beta cyclodextrin ama all those names kaasi oo wada aad garanaysaan dadkeena chemistryga ku fiican ama Sinovac oo kale waxaa ku jira adjuvant oo loo yaqaan aluminum hydroxide oo talaalo badan aad loo isticmaalo adjuvantgaasi aad loo isticmaalaa marka waxaasa ku jira contentiga compositionka talaalka storage-ku uu baahan yahayna 2 degree centigrade ilaa 8 degree centigrade ama 36 ilaa 46 Fahrenheit kiiba waa 0.5 milliliter oo u baahan in intramuscular laga qaato muruqa laga qaato labadaasna waxaa ku jira ilaa 5 dose 5 dose marka waxay noqonaysaa 10 milliliter maxaa yeelay maadaama 0.5 loo baahan yahay qofkii in la siiyo marka detailska loo baahan yahay inta dada ku imaanaysa inta dada aad siinaysid inta maxaan ku rahdaa si loo yareeyo dayacaada iyo maxaan ku rahdaa waxa qasaaraya maxaa yeelay dhaladu mar haddii furka laga qaado isla maalinta waa la isticmaalaa hadalooyinka qaarkoodna expiration date bay la socdaan ilaa iyo bilooyin bay furnaanayaan haddii mar fridge-ka la dhigo waxyaabo badan oo handling ah oo loo baahan yahay in dhaqaatiirtooda aad xil isaga saaraan baa loo baahan yahay intaa ka gadaal ingredient-iga ku jira talaalada siba talaalada hadda aan ka hadlayo kale dhammaantood waxaan rabaa inaan ku dareensiyo kuna sheego in ay yihiin kuwa maxaan ku rahdaa safe ah sababtu waxay tahay ingredient-igaasi hadda aan ka hadlayo magacyada chemistry-ga aan ku akhrinayay ama adjuvant-iga hadda aan ku sheegay aluminum hydroxide oo kale waxay qabanayaan waxay tahay to keep the vaccine blended together vaccine-ka in uu maxaan ku isku milaado oo si stable ah uu u shaqeeyo oo marka la mudayo xitaa ilaa goob kasta ay soo socdaan oo aysan wixii kala daadan marka hawsha loogu talagalay ingredient-igaasi waa sidaas talaal kastana wuxuu leeyahay ingredient asaga u gaar inactive ingredient asaga u gaar ah weli waxaan rabaa inaan kuu sii sheego dadka iyagu maadaama aynu nahay ahludiin oo su'aasha ugu horreysa annaga markaan joogno qarbiga imaanaysa waxay tahay waxa kan xalaal ma yihiin waxa gudihiisa ku jira armay cunno maxaan ku dhahdaa animal products ee ku jira armudo far maxaan ku dhahdaa porcine gelatin uu ku jira su'aalahaas waa su'aalo aan 10 sano ama 15 sano ugu dambeysay aan ku howlanayn haddaynu nahay bahda caafimaadka ee Mareykanka joogto waqti badan baa naga kale hadda waxaan rabaa inaan kuu sheego the International Islamic Fiqh Academy waxay go'aan ku gaareen oo soo saareen maxaa la dhihi jiray fatwa ah in markay fiiriyeen dhammaan talaalada lixda iyo hay'adda caalamka u qaabilsan caafimaadka ay siisay emergency use listing-ka ay siisay dhammaantood lixdaasiba markay fiiriyeen ingredient-iga waxay yiraahdeen they don't contain animal products and components of animal origin in the final vaccine product kuma jiraan wax maxaa la dhihi jiray animal product kuma jiraan iyo wax xaraam ah kama aragno waana la isticmaali karayaa they are permissible according to sharia law diinta islaamka shariicada amarkeedii bay maxaan ku radaa waafaqsan yihiin wax ka hor imaanayana ma jiraan ayay International Islamic Fiqh Academy ay ka soo saareen fatwadaasi marka waxaan kuugu sheegayaa waxay tahay haddii aad tahay qof danaynaya arrinta noocaas oo kale oo shaki uga jiray armay maxaa la dhihi jiray waxa ku jira ay doofaar u yahay ama xitaa xayawaan la qalay ama xitaa xayawaan laga soo dhirdhiriya isagoo aanan maxaan ku radaa lagu xadgudbay waxaasoo dhan culimmadii inoo baartay waxay yidhaahdeen waxaasi waxba kama jiraan innagaa fiirinay aqoonna u leh maxaan ku radaa ahna maxaan ku radaa International Islamic Fiqh Academy ah su'aal ma jirtaa may egadow walaalayaal waxaan rabaa inaan idin sheego marka hadda bixinta talaalkii baan guda gelayaa oo si degdeg ah talaalku yaa la siin karayaa talaalku waxaa la siin karayaa qof kasta oo da'diisu 18 sano ka weyn tahay iyo ka weyn
wiilka quruxda badan aad arkaysaa 18 jirka ama ka yar ama maxaan ku rahdaa ka weyn isaga iyo cid kastoo la mid ah gabar kasta oo maxaan ku rahdaa 18 jir ka weyn baa la siinaya talaalada Johnson & Johnson maxaan ku ilaa waa kura Sinovac AstraZeneca iyo talaalada hadda Soomaaliya yaala dhammaantood sababta loo leeyahay da'duna waxay ku xiran tahay clinical trial la sameeyay dadka ka qayb galay ayaa waxay ahaayeen dad da'doodu intaas ay ka weyntaa caruur markaa laguma darin waxaa jira talaalka keliya ee maxaan ku caruurta da'dooda ay 12 sano iyo ka weyn tahay waa midka Pfizer la yiraahdo Pfizer vaccine keliya ayaa caalamka 12 jir uu qaadan karaa 13 jir uu qaadan karaa 14 jir uu qaadan karaa 15 jir uu qaadan karaa 16 jir iyo ka weyn buu qaadan karaa ilaa iyo 100 jirba talaalka Johnson & Johnson waa hal doos keliya hal doos baa qaadanaysa waxyaalaha ku fiican waxaa ka mid ah dadka danaynaya in halkooda doos qaataan kadibna ay maxaan ku radaa ay proofkooda qaataan oo aysan u soo noqon 3 bil 2 bil kadib dadkaasi maxaan ku radaa dooskooda qaadan karayaan Sinovac oo kale isagu waa 2 doos laakiin 2 dooskiisu waxay tahay dooska labaad marka maanta dil ugu duro 2 week gudahood ama 3 week ama 4 week kama dambeys ayaad ku qaadanaysaa dooska labaad marka bil gudahood waxaad ku qaadanaysaa doos 1 iyo doos 2 halka Pfizer iyo Moderna saasoo kale yihiin AstraZeneca dooska labaad ay dhici karayso in la qaato 2 iyo 10 week marka adiga fursadahaas jira ayaa muhiim ah iyana dadku inay ogyihiin meelaha qaarkood talaalku uu ku yar yahayna duwalku waxay go'aan qaataan inay kala fogeystaan iyagoo markaas danta iyo xaaladda ay ku joogaan ama xaaladda ay ku jiraan u danaynaya laakiinse caadiyan talaalku waqtiga la rabo in la qaato waa waqtigii kambaniga soo saaray talaalka uu u qorsheeyay kuna qoray maxaan ku rahnaa protocolkiisana ku qoran talaaladu yaan la siin kareen dad waxaa jira runtii allergic ah oo loo baahan yahay in aad iyo aad looga taxadiro talaalka qofka talaalis waa inaad ogtahay inuusan maxaan ku rahdaa severe allergic reaction oo waxa loo yaqaan anaphylaxis aanu lahayn oo qofka marka haddii immediate allergic reaction uu qaato waa inuu jira nidaam qofka wax looga qaban karayo taasina waa very important dadka iyaguna allergic iyo waxaasi qofka marka waxaa weydiinaysaa dawo aad qaadatay wax ku noqotay cunno wax ku noqotay keda waad aragtaa markastaba dhaqaatiirta waxay ku weydiinayaan هذا allergic waa very important maxaa yeelay qofku wuxuu ku siinayaa dawadaasi ma doonayo qayb ka mid ah in hadaad allergic ku tahay haddii inay caqabad kale ugu keento looma baahna waxa kale oo muhiim ah dadka aan maxaa la dhihi jiray severe allergic qaba waa in isla markiiba epinephrine la siiyo oo maxaa ku EpiPen oo allergigaas wax ka qabanaya marka meelaha goobahaasi waa inay haystaan oo inay diyaar u yihiin si wax looga qabto allergiga qofka la imaanaya waxa kale oo muhiim ah iyana allergigaasi badanaa wuxuu dhacaa marka qofka lagu mudo ilaa 4 saac ugu horeysa qofka haddii 4 saac gudahooda aan wax weyn kula imaan oo maxaa la dhihi jiray uu maalin iyo kadib ay noqoto waxay noqonaysaa marka normal maxaan ku radaa reactionka qofka caadiga ayaa dhici karaysa inay noqoto laakiin haddii allergic uu yahay qofka marka la muday uu la yimaado hives iyo swelling barar iyo neef qabatin oo qofka respiratory distress uu ku yimaado kale kuwaasi waxa weeyaan waxa la xiriirinaya waa acute allergic reaction ka yimid talaalkii ama wixii hadda ugu dambeeyay qofku uu qaatay saacadii ugu dambeeyay haddaanu qofka cunooyin cusub iyo waxyaalo kale cusub aanu sameyn oo isaga aanu ka sii waalin laakiin dadka caadiga waxa loo baahay waxaas oo documentation-keeda inay leedahay dadkuna laga warhayo maadaama talaalku uu faa'iido badan leeyahay looma baahno in la sii waalo oo dhibaatooyin kale iyo warxumo tashiil kale ummaddu ay la timaado waxaan jeclaan lahaa in dadku inay og yihiin ilaah waa ku royahay haddii Johnson & Johnson oo kale ama talaal fulaan aad su'aal ka qabtaa hadda waxaad haystaa choice Sinovac isagu wuxuu ku fiican yahay haddii sida loo sameeyay ama farsamada la isticmaalo waxay talaalo hore aan u qaadanay ee jadeecadu ay ka mid tahay booliha uu ka mid yahay oo aynu naqaan oo hore qaarkeena aan qaadanay ama ilmaheena ay qaateen ama xaasiskeena reerkeena ay qaateen oo shaqeynaya ayuu ka samaysan yahay marka waa ku bedelan karaynaa marka talaalka waa in qofka uu ka dhirigsan yahay kan haddaanan rabin kanaan rabaa waa inaad ogtahay well informed decision qofku waa inuu sameynaya go'aanka aad qaadanaysaa waa inuu yahay mid ku salaysan aqoon ee aysan ahayn mid ku salaysan bakhdin iyo warar aan jirin
oo runtii waa la yiri iyo waa la sheegay keliya aysan ku salaysnaan waxaan kaloo jeclahay in dadka talaalka siinaya ay dad xirfad leh dad la tababaray dad laga shaqeeyey maxaa yeelay dadka iyagu waxay u nugul yihiin talaalka cabsi badan bay ka qabaan jahli badan baa jira marka iyagoo markooda horeba talaalkii ka caaganaa oo diidanaa haddii adiguna farsamo xumo xaggeed iyo maxaan ku radaa iyo maarayn la'aan ay timaado hadda waxay noqonaysaa markaa in madaxa la isu geliyo aan la kala garanayn markaa ma talaalkii bay hawsha ka socotaa ma qofkii operatorkii handle garaynayay bay ka socotaa ma talaalkii storages ka socotaa wixii dhan documentationkan waa very important dadka qaarkood haddii because of maxaa la dhihi jiray allergic waa in no do not vaccinate qof talaal maxaan ku radaa allergic qaba kow haddii dadka qaarkood ay precautionary ay maxaan ku radaa vaccinationka leeyihiin oo kale ayagu markaa risk assessment wax la yidhahdo lagu samaynayaa allergic waxaa loo diriya xataa laab baa loo diriyaa qofka uu leeyahay immunologist haddii uu jiro oo allergist immunologist qof ku takhasusay immunologyga in loo diro laab uu leeyahay qofka kan ma ku yahay maxaan ku radaa waxa kan reactive ma ku yahay ama qofka xitaa haddii la siiyo in 30 minute halkan fadhi lago oo qofkii uu ku sugto oo la fiiriyo sida uu responsigiisu noqonayo oo haddii markaa ay dhacdo qofkii kadibna epinephrine la siinayo oo allergiga ka baabi'inayo marka dadku waa in sidaasi wuxuu ay ahaadaan ma ahan wax maxaan ku radaa inta iska soo qaba paj la iska siinayo ma ahan dadka operatoradan si toos ah ula hadlaya dhaqaatiirtan la hadlaya nidaamkan la hadlaya waxa weeyaan waxa kan waxay noogu yimaadeen deeqdana in laga faa'iideysto loogu talagalay welito waxaan ka raaridayaa maadaama liability ay jirto waxa kan talaalku waa in documentationkiisa oo la yaqaano qof waliba wixii uu qaatay rekoorkeeda uu qoran yahay meesha uu ka qaatay qoran tahay qofka xitaa uu og yahay kadib xitaa haddii mustaqbalku wax ay yimaadaan meel loo raaco in la leeyahay aysan iska noqon maxaan ku radaa meel sida caano la gadayo kale looma isticmaali karayo talaalka iyo bixintiisaba waxaad ogaataan talaalku wuxuu leeyahay mild and no side effect dadkayga aad bay u jecel yihiin aan uga baqaan marka talaaladan waxay leeyihiin side effect aad u sahlan ama qaarkoodna ma laha dad badan baa u diyaar garoobay oo aniga baan ka mid ahay doosuugii waxaan lahaa maalin 2 maalmood oo fasax u soo qaatay inaan u qandhoodo oon u seexdaa u soo qaatay dabadeedna ilaahay ima badin oo macnaha ma aanan la kulmin dhibkaasi dadka qaarkood marka lagu mudo wax yar oo waxaad dareemaysaa meesha lagu muday kadibna maxaan ku waa ka gudbaan dadka qaarkood waa dhici karaysaa inay muruq xanuun iyo dhabar xanuun iyo ay u dareemaan iyadoo ay ku xiran tahay ma dooska koowaad mise dooska labaad badanaaba dooska labaad ayaa maxaan ku radaa reactionku uu ka zaa'idsan yahay ka hore waxaad ogaataa tallaalada laga hadlayo kuwa lagu keenay balfaa rikoorkooda baar Johnson kale ama AstraZeneca oo kale AstraZeneca waxaa loogu talagalay 2 bilyan oo qof in la siiyo by the end of 2021 2 bilyan qof ayaa loogu talagalay in la siiyo haddii 2 bilyan oo qof la siinayo oo Africa iyo Asia iyo Europe dhanba ama Canada ee dhammaantood dadkooda ay qaadanayaan inta qof ay qaadatay yaa wax ku noqon inaad is ogto waxa kaliya la sheegaya side effectiga ee maalka ah madax xanuun yar qandho yar body ache maxaan ku radaa iyo jir xanuun waxaasoo dhan waa wax ka mid ah talaalka qaadashadiisa ilaah waa ku rooyahay waxaan rabaa inaan u sii guda galo waxa aan ka hadlayo ee maalkaasi ee reactionka caadiga laga filayo waxa uu yahay inta la ogyahay waxaa ka mid ah qofka meesha laga mudo meesha marka laga mudo inay ku xanuunto inay ku guduuto inay ku yara bararto waa qayb ka mid ah talaalka jirka intiisa kale inuu qofka daalo inuu madax xanuun ku qabto inuu muruqaha ay ku xanuunaan in aad qarqariye iyo qandho iyo lalabo ay ku qabato waa qayb ka mid ah sababtu ay qayb uga mid u tahayna waxay tahay walaal waxaad ogaataa talaalkan waa antigen ama immunogen wax loo yaqaan immunogen waxa weeyaan waa wax jirkaaga ka carisiinayo oo antibody jirkaaga ku qasbaya inuu sameeyo marka jirkaaga waxaa laga dhigayaaba inuu dagaal galo isagoon diyaar ahayn isagoo maxaan ku caafimaad qabay oo cudur aanu ku dhicin baa cudur oo choice ah oo adigu aad dooratay oo lagu dooray oo vaccine loo yaqaano ayaa jirkaaga inta lagu mudo ayaa waxa weeyaan lagu soo hormariyay cudurkii qurub qaybo ka mid ah dabadeedna jirkaaga wuu dagaalamayaa jirkaagii baa waxaa ka dhexdhacaya dagaal antigen iyo immunogen yimid oo cudur dhaliyayaal qaybo ka mid ah
iyo jirkaagii ku difaacaya reactionka ama pyrogenka meeshaas ka imanaysa qandhada waxa loo yaqaanaa ama difaaca jirkaaga inuu jirkaaga uu qarracda aan maqashaa oo madax xanuunka aan maqashaa waaba qayb ka mid ah loona baahan yahay qof kasta inuu la kulmo maadaama la doonayo jirka inuu soo saaro antibodiyo aad u tiro badan oo la rabo inay mustaqbalka ku difaacaan waxyaalaha runtii aan doonaya dadku inay u diyaar garoobaan waxaa ka mid ah qofka talaalka markuu qaadanayo u diyaar garoobo in maalintaasi iyo wax lamid ah aad la kulmaysid xitaa haddayba dhacdina qandho zaa'ida ku qabataana biyo cab steji maxaan ku dhar khafiifa qaado ku talagala in maxaan ku dhahdaa waxa kan ay yihiin maalin 2 maalmood oo adigu aad og tahay maxaa yeelay waxa ka badan culayska kale dhibka kale ee cudurkan uu lahaa ee ilaah idankiisa uu ka difaacayo ayaa ka badan waxaan jeclahay su'aalo gaar ah oo dadku badanaaba aad noo weydiiyaan inaad ka diragsan tihiin dadku haddii ay qabaan waxa loo yaqaana underlying conditions talaalku ma qaadan karayaan ha talaalku way qaadanayaan waana lagula talinayaa dadka qaba dhiigkarka dadka qaba kaadimcaanta dadka qaba asmada ama neefta dadka qaba sabab xanuunka beer xanuunka kaliya xanuunka dialysiska iyo cudurrada noocaas oo kale ah maxaan ku rahaa stable-ka ah ee chronic ah joogtada ah cudurrada raaga ee qofka stable-ka u ah ee la degay ee maxaan ku rahaa wax zaa'id aysan jirin dadkaasi waa dadka la doonayo in lagu horumariyo oo talaalka la siiyo maxaa yeelay dadkii aadka u aafeeyey ee baabahda u ka dhiga waa dadka noocan oo kale ah haddii uu isku helo dadka noocan xaaladan ah iyo ayagii oo unprotected ah haddii uu ku dhaco maxaan ku rahaa covid-ka waa dadka uu meel xun uga soo horayo isbitaal inuu dhigo oxygen ay u baahdaan ama aakhiro u dirayba dadku aakhirada u diray dadkaan u badnaayeen marka si aysan taa u dhicin ayaa waxaa la doonayaa in dadka kan lagula hormaro oo ay ahaayeen priority number 1 ba ay yihiinba su'aal labo su'aasha xigtaa waxay tahay haddii aan uur leeyahay ama gabar uur leh ay tahay talaalka ma qaadan karaya waxaan rabaa inaan kuu sheego haa waad qaadanaysaa iyadoo ay ku xiran tahay dhakhtaradaada ama dhakhtarkaaga u tag adiga dhakhtarkaaga go'aankaa gaara laakiinse dadka dhaqaatiirta ee aan la joogno ee ku takhasusay cilmiga dhalmada reproductive health taranka dhammaantood waxa ay ku taliyeen in gabadha uurka leh talaalka aan loo diidin inuu available u yahay all pregnant individualska in ay haystaan oo aan laga maanicin waxay yidhahdeen faa'iidada ay inay qaadato ay leedahay ayaa ka badan khasaaraha ku imaanaya maxaa yeelay gabadha uurka leh haddii cudurkan covid-ka uu ku dhaco gabdho badan baa dhiciyey gabdho badan baa maxaan ku rahdaa dhibaato badan ka soo gaar si taa aysan ugu dhicin markaa gabdhaha uurka leh waxaa la rabaa in ay badbaadada ama protectionka ay helaan sidaa darteed baa waxaa leeyahay ha la siiyo waxaa kaloo jirta insufficient wararka ma sugna oo lama hayo wax caddaynaya otherwise wax ka soo horjeeda warka aan kuu sheegayo oo jira ma jiraan marka taana waa muhim oo dadka gabdhaha uurka leh waa inay arrintaas ka dheragsan yihiin hadday noqoto Sinovac runtii meelaha qaarkood waxaan arkayay iyagooba kuwa talanay haddii cudurro maxaan ku talaalada qaarkood ay maxaa la dhihi jiray ay noqdaan kuwo laga shakisan yahay waa choice way kanaad qaadan karaysaa kaasaa qaadan karsa because of this because of that horena waa kugu sheegay Sinovac farsamada laga sameeyey waa tan jareecada iyo MMR-ka laga sameeyey waa kuwo badan oo hore u qaadatay oodan ka warqabin laakiinse maxaan ku ayaa jira markaa laga faa'iidaysto fursaddaas si aysan ku dhaafin su'aasha kale aan jeclahay waxay ku socotaa gabdhaha yaryarka ah ee jaamicaadka ka baxay ee dhakhaatiirteenna ah kalkaaliyeyaashada caafimaadka ah ayaa waxaa wararkii soo gaaraya waxay leeyihiin iyagii frontline-ka ahaa qaarkood baa su'aal weli ka qaba oo waxaa jirta war ah in uu dhalmada uu ka istaagi karayo ama madhalays uu ka dhigi karo sheeko ku baahda dadkeenna iyo dad badan annaga nala mid ah waxaad ogaataan gabar kasta oo da'da dhalmada ku jirta hadday tahay 12 jir iyo hadday tahay 50 jir oo weli maxaan ku rahdaa lama sheegin buruufna looma hayo talaal qaadashadiisa in ay dhalmadeedu wax u dhinto waxaase lagula talinayaa inay talaalka qaataan talaalku yes way qaadan karaysaa waana loogu tago inay qaadato maxaa yeelay wax
cilaaqa oo ka dhexeeya talaalkan hadduu yahay Johnson hadduu yahay hadday tahay Pfizer wax cilaaqa oo ka dhexaysa ama dhib uu keenay ma jirto lamana yaqaan marka waxaa lagula talinayaa wax evidence looma hayo in uu raad ku leeyahay inuu fertilityga ama taranka qofka bini'aadamka hadduu yahay nin iyo naag midkood inuu effect ku leeyahay looma hayo mana jirto marka taa darteed waxaa lagula talinayaa gabar yahay gabdhihiinaan kalkaalayaasha caafimaadka gabdhihiinaan dhaqaatiirta ah gabdhihiinaan maxaan ku rahdaa cusbitaalada jooga ha isku haleynina keliya inaad da'diinu ay yartahay darteed cudurka aad u bawacdhigi kartaan idinkaa la doonaya dadku inaad ka gadaan idinkaa la doonaya naftiina inaad qaadato idinkaana la doonaya inaad fully vaccinated aad noqotaan haddii idinkuba aydan maxaan ku rahdaa aydan idinka daadegin sidaan maqlay wararka waxay noqonaysaa hadda khasaaro sababtoo ah you are in the wrong field bay ila tahay aniga aragtidayda maxaa yeele adigay ahayd in aad waxa kan aad aaminsan tahay ood og tahay maadaama fiilka aad soo gashayba ee caafimaadka iyo dadku inaad maxaan ku rahaa caafimaadku wax ka qabataa adiguba haddii aadan dawadii waa adigoo dawadan maxaan ku rahdaa madax xanuunka ah ka shakiyey aadna dhici karta inaad qaadatid hadda tanna waa la mid marka saa ula socda waxaan kaloo jeclahay su'aal kaloo waxaa jirta anigu talaal ma u baahni mana qaadanay sababtoo ah cudurkii baa igu dhacay cudurkii baa ugu dhacay yes cudurka haddii uu kugu dhaco waxaa lagugula talinaya inaad talaalkan aad qaadato sababtu maxay tahay haddii lama garanayo talaalka cudurkii kugu dhacay immunityga jirkaaga uu develop gareeyay inta ay la eg tahay iyo inta uu qaadanayo inuu ku difaaco talaalka haddii aad qaadatidna haddee waxa weeye adaaba nasiib badano wuxuu kuu noqonayaa booster buu kuu noqonaya isagii baaba intii aad haysteen kor kuugu sii kicinaya kadibna adaa ummad ugu fiicnaanaya markaa fadlan qaado maadaama aan la ogeyn dadkii maxaa yeele dadku wuxuu ugu dhacay si kala duwan qaarkood si mild ugu dhacay qaarkood si dhexe ugu dhacay qaarkoodna waxa weeyaan aaqiru gaarsiiye ama aaqiruuba u diray qaarna ilaa iyo ventilatoray ku jireen muddo marka qofka inta uu dhibka gaaray ayaa difaaciisina uu la ekaanaya dadka mildka oo kale haddii uu dhaho aniga mild buu ku dhacay cudurka ugu dhacay talaal uma baahni waxaad ogaataa marka responsigii jirkaaga uu sameeyey aad buu u yaryahay marka si shakiga dhan looga baxo ayaa waxaa leeyahay dadku ha qaateen qofkii hore ugu dhacay haddii talaal loogu daro haddii isagaaba ka nasiib badan ummadda inteeda kale oo markaasi uu badanaya maxaan ku difaaciisa waxaa kaloo jirta talaalka sidiisa waxaa loogu talagalay qofka inuu siiyo immunity difaac dhammaystiran oo qofka wala jeclaan lahaa inuusan kuguba dhicin cudur laakiin taa ma dhacayso infectionka ma ilaalin karo laakiin wuxuu ilaalinayaa markuu infection kugu dhaco inaanu progression aanu samayn oo aanu pathogeneskii uu jirkaagii uu maxaa ku sii horumari lahaa aanu saas ugu horumarin oo uu joojiyo ayay u badan tahay marka saa hadduu samaynayo waxaa dhacaysa markaa in qofka aanu sik xanuunka aanu jiri sariirta seriously sick aanu noqon iyo qofka inaanu uba dhiman ayaa biidnillaah uu ka hortegaya maxaa yeelay haddaad la socotaan dadka marka ay xanuunsadaan dadka lacagta leh madaxweynihii hore oo kale maraykanka oo kale hadda cudurka markii isla marka ku dhaca laba dhinac baa laga abbaaray laba dhinac laga abbaaray waxay tahay in viruskan lala dagaalamo oo la siiyo virus dile iyo in jirkiisana lagu shubo antibody oo monoclonal antibodies ah oo antibody jirkiisa aanu weli soo saaray in loo sii horumariyo marka labada dhinacba waa laga abbaaray viruskii labada dhinac laga abbaaray waxay tahay monoclonal antibodies oo antibodiyo uusan lahayn madaxweynaha duqa ahaa yaa taqaaneen uusan jirkiisa lahayn baa loogu sii shubay si markaas jirkiisa uu dagaal durbo u bilaabo iyo waxaa la siiyey iyo viruskiina dawooyin oo maxaan ku rahdaa u diiday inuu qaybsamo laba dhinaca laga abbaaray viruska saasaa loogu guulaystay waana aqoon waa science marka adiga waxaa faa'iidaad helaysaa jirkaaga marka la talaalo jirkaaga gantaaladiisii buu sii diyaarsanaya next time marka kugu dhaco jirkaagii oo diyaarsan oo gantaaladiisii ayaa maxaan ku rahdaa nooc kastoo kugu dhacaba delta iyo wixii la mid ah haddii kugu dhacaan waxaad 100% ka fiican tahay haddii aadan talaalnayn talaalku waxa weeyaan wuxuu noqonayaa qofka arrinta conceptigan waa doonayaa inaan ummadda u sheego qofka haddii talaalku uu qaato talaalada labada doos ah 2 weeks kadib markaad doos qaadatid one dose markaa qaadatid partial immunity baad leedahay
oo jirkaaga wuxuu soo saaray antibodiyo ku filan ilaa ay xad taasoo ah marka dooska labaad aad qaadatidna oo 2 week ay ka soo wareegtana waxaad noqonaysaa fully vaccinated taasi waxaan jeclahay in dadku ay ka dharagsan yihiin talaalka kaliya ee Johnson ah ayaa hal doos ah isaguna maanta markaad qaadatid oo 2 week ay kaaga soo wareegto ayaad fully vaccinated aad noqonaysaa wixii gadaal ka soo baxay ee booster shots waanu ka hadli doonaa marka ra'yi waxaa jira faafay oo hadal qaldan ah oo wrong information oo misinformation ah ee Soomaaliya dhexdeeda ku baxay kaasoo ka dhahaya haddii talaalada AstraZeneca iyo Johnson iyo talaalada labada doos haddii mid qof la siiyo qofka marka hore waxaa la siinayaa cudurkii baa lagu mudayaa sidaas ay yiraahdeen qaar baa dhahaya been abuur sameeyay ama aqoonsi aysan u lahayn bay ka hadlayeen waxay dhaheen cudurkii baa lagu mudayaa marka qofku waxa loogu talagalay dooska labaad oo anti maxaan ku radaa cudurkii ah haddii lagala soo daaho ama qofkii uu misgareeyo qofkaasi waxa weeyaan waa la qatalay waa la dilay hadal noocaas oo kala faafay ummadda dhexdeeda ku faafay baa jira oo qaldan waan doonayo si kastoo ay tahay inaan uga hortago ummaddana u sheego una bayaaniyo qofka haddii hal doos kaliya uu qaato oo ay dhacdo xitaa inaan weligiisaba qaadan ama maxaan ku radaa uu ka guuro meeshii siday ku dhacdaba waxa weeyaan qofkaasi wuxuu ka soo tegay vaccine la'aan buu ka soo tegay wuxuu yimid ilaa heer dhexe haddii qofku uu dooskiisa labaad qaatana hadda booster bay u noqonaysaa waxay siinaysaa full protection markaasaa waa in loo ogyahay waxa kan waa isku wada mid doos 1 waxa ku jira doos 2 waa islagi identical weeyaan wax ay ku kala duwan yihiin male waxa kaliya waxay tahay nacnac lagu siiyay haddana nacnac labaad lagu dira ama qaado sokorood shaaha ku darsatay haddana qaado sokor aad ku darsatay maxaan ku leedahay daqiiqad kadib oo ku macaynka ku sii kordhisa ayay ka dhigan tahay waxa weeyaan dooskan hadda lagu siiyay weekend 4 week kadib marka dooska kale lagu siiyo haddana antibodieskii bay kaaga dhigaysaa 100% protection ku siinayso marka arrintaasi waa arrin muhiim ah walaal la gaarsiin dadka ka dhaadhici haddii ay weli aysan cadeen fadlan ila soo xiriir anaa ku jilcinayo waxaan jeclahay inaan kuu sii sheego vaccine sidoodaba waa effect cudurrada badankooda way difaacaan xitaa talaalada ee variantiga ah ee maxaan ku radaa cudurkan hadda soo baxay alpha beta gamma delta ayay wax ka qabanayaan waa very important marka waxa kaliya lagu hortegi kara talaalada waxay tahay waxa kaliya lagu hortegi kara variantigan delta inuu ummadda ku dhex baaho waa in talaalku uu baaho oo dadkaygu ay talaal wada helaan haddii talaalku aanu 100% ama 80% aanu gaarin hadda waxay noqonaysaa in uu cudurkii maalinba korkayaga isku bedbedelo oo uu midba midka ka dambeeya uu ka sii daraado talaalku waxa weeyaan isna haddii xitaa aad qaadatay kaama harayso nadaafadda iyo public health measureska kala fogaanta maaska xirashada taxadirka waxaasoo dhan marna kaama harayaan masaajideena waxaa loo baahan yahay xitaa haddii dadku ay isu dhow yihiin inay maaskiga xirtaan baa ku talinayaan goobaha lasugu imaanayo garoomada cayaaraha hadday bannaan tahay outdoor la garay laakiin wixii indoor ah waxaan 100% ku talinaya waqtigan la joogo ee ah dhammaadka bisha August maanta waqtigan duubayo August 30 weeyaan 2021 waxaan caalamka qof kastoo Soomaaliya jooga oo hadalkayga maqlaya fahmaya fariinta aan gaarsiinaya waxay tahay fadlan cudurkan isagii halis ah ka halis badan kii 2020 ayuu caalamka dhex mushaaxaya qofku dilayo iyo qofku dhaawacayaba waxaan ka codsan lahaa in sidii looga hortagi karaa waxay tahay adigu naftaada inaad ka mas'uul noqotaa oo aad maaskiga xirtaa qoyskaaga aad badbaadisaa ilmahaaga aad badbaadisaa oo aadna ku dadaashaa maxaan ku nadaafadda naftaada reerkaaga saaxiibada qaraabadaada ehelkaaga waxaan jeclahay oon ku soo qatimayo sheekada ah haddii la talaalo ama aad dadka talaashaan waxyaalaha loo baahan yahay in monitoringka lagu sameeyo joogtada waxaa ka mid ah in lala socdo safe surveillance and monitoring inuu jiro dadkii aanu talaalnay kumaanka kuna aanu talaalnay in lala socdo maxay sheegeen in la siiyo meel ay soo wacaan inay meel ay imaan karaan in ay dadkii meel ay maxaan kala lala socon karo xitaa in la wici karo dadka lala socon karo maxaa yeelay dadka qaarkood waxaa dhacday
وداد آدو ترير بخدنا يبقانا يام باي قاركود سوحان مكت تلاك لمدو لكن قاركود ديق مركا كان وي سوحان runtan kuu sheegaya dad tiro yar baa suwax dad tiro yar baa maxaan ku allergic reaction ku dhacay dad tiro yar bay waxaan qabsadeen marka laakiinse marka halka waxaas ay dhacaan ayaa microphone-ka iyo hadallada iyo maxaan ku radaa publishtaga ay helayaan baa aad u tiro badan tusaale ahaan Johnson oo kale iyo AstraZeneca oo kale blood clot issue waa jiray oo dhagxinjiro dhacay yay ku dhacday imise la ekaayeen mar loo joojiyo AstraZeneca waa jirtaa Johnson loo joojiyo waa jirtaa kadibna baaritaan dheer la sameeyay waa jirtaa kadibna dib loo furay markii la ogaaday waxa kale inay yihiin wax aad iyo aad u yar dad tiro yar oo aanan maxaan ku raadaa marka loo fiiriyo talaal la'aanta iyo talaalka dadka qaatay ay isu dhowdahay wax farqa aan u dhaxayn marka waa inaad saa u fahamsan tahay ee aysan noqon waa la yiri way dhacday iyo mar aad maxaan ku raadaa dadku waxay isla wareegaa dadka iyaga cajalad ama video ama YouTube video oo qof sameeyay in wuxuu sameeyay la garanay ayaa dadkaygu mar kastaba anaa la ii soo diraa marqaati leeyahay maxaan ku radaa Bill Gates baa ka dambeeyo dadka maxaan ku radaa dalmayskooda dhigaya anaa la ii soo diraa dadku waxa loogu talagalay mashaariic loogu talagalay anigu waa qaldan tahay iyo waxa tahayba adigana waxa ujeedaa u dan leedahay waa dadaalaysaa qof yahow laakiin anigu alxamdulillah waxaan ogahay anaa qayb ka ahaa talaal sameyntiisa anoo u sameynaya malaria anoo u sameynaya bilhaarisiya cudur la yiraahdo oo aan ku takhasusay markaan maxaan ku radaa ardayga ahaa waxyaalaha uu keenay blood clotting-kaasi ee dhacay waxaa ka mid ahaa dadku inay la kulmeen neef qabatin xabad xanuun lugaho barara in maxaan ku abdominal pain-ka maxaan ku inuu xanuunay iyo waxyaalo noocaas oo kale marka haddii dadku ay isku arkaan in laga warhayo weeyaan dawadan waa cusub tahay talaalkan waa cusub yahay waxaa loo baahan yahay nidaamka inuu shaqeeyo taasi waa howl inaga wada dhaxaysa haddaynu nahay dhaqaatiirtii haddaynu nahay wasaaraddii ku shaqada lahayd iyo haddaynu nahay dowladdii oo dhan si aynan maxaan ku radaa dadka fursadda u siin oo balaayada ka shaqeeya waxaa jirta Johnson Mareykanka muddo baa wiig la xanibay kadibna waa la sii daayay markii la baaritaan buuxa la sameeyey kadibna la ogaaday waxaan occurrence-gan waxaan dhacaya inay yihiin wax aad u yar AstraZeneca waa la socotaana Europe Jarmalka iyo wadamo Europe ah in ay maxaan ku arrimo dhaceen kadibna la fasaxay sababta loo joojiyo waxa ahayd baqdan laga baqayo ruuxa kan maxay yihiin kadibna markii si guud loo fiiriyay ay wixii ay noqdeen wax yes waa jiraan laakiin waa wax aad iyo aad u yar maxaa yeelay cadawga banaanka jooga ee COVID-ka ah ayaa ka dhib badan COVID haddii uu ku dhaco dad qofkaasi ma sii deynayo aakhiro u dirayaa ama meel fog buu uga soo harayaa marka Mareykanku waxay sameeyeen waxay yiraahdeen markay ogolaadeen waxay dhaheen dumarka da'dooda ka yartaa 50 sano regardless of whether they are pregnant hadday uur leeyihiin haddaysan lahaynba waa inay ka warhayaan in rare incidents waxaa jira arrimo naadir ah oo aad u yar oo ay dhici karayso dadku inay la kulmaan TTS marka taasaa lagu daray dhalada oo dadku looga digayo loona baahan yahay dhaqaatiirtiina dadka inay u sheegtaan faa'iidada khasaaraha waxa dhici kara waxa ka ihtimaalaya waxaasi waa arrin muhiim ah weeyaan haddaynu nahay dadka cilmigooda ku shaqaynaya ee bahda caafimaadka dadku wax lagama qariyo dadku waa loo sheegaa inkastoo dadka iyagu aysan jeclayn inay balaayo arkaan mararka qaarkood dhaqaatiirta halkan joogta oo ayba kuu sii saadaaliyaan waxa dhici kara waa ku qabanaysa idaah laakiin ujeedadu waxay tahay yes alaabtan waa la soo approve gareeyay waa license faa'iidadeeda ka badan khasaaraheeda laakiin khasaare yar ayaa dhici karayso inay ihtimaasho ay ka dhalato ogaantaasi waa ogtahay iyo ogolow anigoo og baan ku siinayaa adigoo og inaad qaatid baan jeclahay bay ku leeyihiin markaana waana cilmi adigaa laga rabo marka inaad heerkaa gaarsiisan tahay aqoontaadu ay dhisan tahay kadibna waxaad qaadanaysid 100% wax maxaan ku risk free ma jiraan biyaha aad cabaysid baa laga yaabaa keliya in ay maxaan ku raasayeen iyaguna waxaa dhici karaysa intaasoo maxaan ku raajaatima inay ku jiraan dhici karto marka qofka wacyiga aan doonayo aqoonta aan doonayo in aan isla fahamsannahay waxay tahay in aynu sidaa u fahamsannahay waxa kan waa cilmiguna dad tiro yar baa Allah subxaanahu wa tacaala uu siiyey dadka badankooda aqoonta ma ay wada laha
marka adiga ilaah nasiibka kuu siiyey inaad wax ogaataa waxaa lagaa doonayaa inaad sida ugu camal fashaa kadibna ummadda aad gaarsiisaa Johnson hadda waddanka yaalla waxaa dhici karaysa mar dhow marka in sanad markay ka soo wareegto booster shots in loo baahdaa dhici karta maadaama isaga markiisu horeba only one shot uu ahaa waxaa dhacday cilmi baaris dhoweyd oo dad qaatay Johnson 2 doos in ay ka heer sarreysay maxaan ku dadkii halka doos qaatay taa markaa waxay ka dhigan tahay Johnson maxay tahay sababta ay hal doos u qaateen hadda cilmi baarisooda waxay ku salayaan kaliya hal doos inay siiyaan oo intaas ah oo maxaan ku 5 times 10 ku jibaaran oo maxaan oo vaccine candidates vaccine particles ah kadibna way u sugateen in maxaan ku raahdaa waqtigaasi kadibna intaasaa ku filnaatay 67% 70% waxay dhaheen waa good oo maxaan ku raahdaa oo temperatureka caadiga oo Africa iyo Asia meelkasta la geyn karo iyaga dhexe intaan la soo shirtageynaa haddii laakiin dadku ay qaateen doos labaadna dadkii doos 1 qaatay haddana mar kale ay doos 2 qaateen iyagana waxay noqotay in uu ka sarreeyo maxaan ku antibody-goodii ka sarreeyo marka taa waxay tusaysaa oy sii saadaalinaysaa in uu iman karo mustaqbalka aan saa u fogeynba in doos 2 ay la qaataan ama booster ay qaataan booster waa kabid la kabayo kii hore waxa kaloo kuu sheegayaa meesha aan joogo Pfizer annaga already dadkii fully vaccinated ahaa ee 2 doos qaatay ee immunocompromised ahaa waxaa la ogaaday iyagoo antibodies ay soo saaraan jirkooda inaanu xeer sarreynin oo aanu gaarsiin dadka caadiga ah marka iyaga already waxaa loo bilaabay in ay qaataan doos 3 oo additional dose inay qaataan Moderna kale iyana dadkii 2 doos qaatay iyana maxaan ku raahdaa sidaas oo kale waxaa kaloo jirta hadda dadkii caadiga ahaa ee 2 doos qaatay ayaa waxay u badan tahay 8 bil kadib in ay qaataan another dose of booster shots ah sababtay u qaadanaya waxay tahay dadkii December lagu bilaabay talaalkan ee Pfizer iyo Moderna iyo Mareykanka ee duqeydii iyo dhakhaatiirtii iyo bahdii caafimaadka priority number 1 ka ahaa kuwaasi ayaa waxaa la arkayaa hadda responsigoodii inuu jirkoodii hoos u dhacayo markaasaa waxay tusaysaa cilmi baaristu u sheegaysaa marka ilaa wuxuu noqonayay maxaan ku radaa wax adiga 8 bil 9 bil ku siman talaalada qaarkood waxa weeyaan sanooyin bay ku haynayaan talaalada qaarkoodna waa for life way marka waxaas oo waxay ku xirantaa talaalka wuxuu yahay iyo waxa uu marka cuduradan ama talaalada hadda gacanta lagu hayo hadday dhacayaan life anagoo taagan baa practically u arkayna maalintii la sameeyay maalintii la dhaqan galiyay ilaa iyo hadda saasaan u taaganay marka taaba keenaysa in waana wax nooc ugu horeeyay waa cudurkan ay talaaladiisa hadda wixii dhanba hadday dhacayaan waa anagoo taagan bay practically ay u dhacayaan marka taana qofku inuu ka dirigsan yahay weeyaan sababtaas way sababta aniga oo cudurkan igu dhacay aan talaalka Pfizer u qaatay 2 doos oo aan haddana diyaar u ahay inaan boosters qaato September iyo October iyo November waqtigii alla ii qadaro ama waqtigan fursad u helo waxaan ku soo qatimayaa haddii dadka qaarkood isweydiinayaan talaalka keeba fiican way adag tahay in laga jawaabo kuma dhihi karayo hebel ka fiican sababtu waxay tahay hadda 2 talaal oo head to head loo comparison karayn kara ma jirto sababtu waxay tahay labada ugu dhow ee Pfizer iyo Moderna labadu way fiican yihiin kuwa kale maxaan ku radaa platformka lagu sameeyay mid inactivated laga sameeyay oo viruskii dhan oo inactivated lagu sameeyay laba babar dhigi karo mid kale oo maxaan ku radaa vector DNA laga sameeyay sida Johnson iyo maxaan ku Gamaleya oo kale iyo ilaah waa ku roon yahay maxaan ku radaa iyo AstraZeneca iyo bahdaas oo dhan laba babar dhigi kuwa kale maxaa yeelay sida loo sameeyay iyo baaritaanka meesha lagu baaray dadkii la baaray degmooyinkii ka dhacay wadamadu ka dhacay iyo waqtigii xitaab cilmi baaristaas ay socotay way ku kala duwan yihiin xitaa hal talaal ayaa waxaa dhici karaysa in wadan fulaan oo talaalku uu maxaan ku cudurku markaa kacsanaa iyo mid kaloo cudurku markaa uu deganaa waa aad bay u adag tahay marka waxa weeyaan talaalku mar hadduu protection ku siinayo aanu dhib kuu keenin uu safe u yahay uu effective u yahay oo ka difaacayo maxaan kula jiro iyo geeri biidnillah waxaan ku talinayaa inaad qaadatid waana fiican yihiin waxaana fiican midka adigu aad heli kartay available ku ah ayaa kuu fiican maxaa yeelay haddaan ku iraahdo hebel talaalkaas ugu fiican uuna kaa xigo maxaan ku radaa Yurub iyo Mareykan uu yaalo oo wadankaaga aanu oolin makaasaad ku riyoonaysaa intaad ka helaysid may taasi ma shaqaynayso marka walaalayaal waxaad ogaataan talaalka in la monitor gareeyo effectiveness-kiisa immunity-ga intuu qaadanayo
in reinfection dadkii uu hore u qaatay inta uu ku dhacay reedka intay tahay maxaa hadday dhacday see u dhacaysaa ma talaalka aynu qaadanay see wax u jiraan effectiveness-kan weli ku jirnaa dadkii uu ku dhacay dadka cusbitaalada u dirayo dadka uu ku geeroonayo ay talaalnaa waxyaalahaas dhan waa in lala socdo waaye aysan noqon wax ummad iska socotaana noqon dadkii diabetic sokorta qabay iyo cudurrada kale qabay ee la talaalay ayagu protectionka ay helay intee la eg tahay dadkii la talaalay yaa u dhintay way jirtaa breakthrough wax loo yaqaano qofka fully vaccinated-ka cudurku ku dhici karaa qaarkoodna xitaa isbitaal u seexinaya laakiin hadday noqoto 1 in million oo kale hadday noqoto iyo hadday noqoto comparison kale dadka aan la talaalinna ay noqoto maxaan ku rahdaa 990,000 oo qof milyankii kastaaba inuu saa samaynayo bal adigu qiyaas markaa hadda ka soo qad mareenka waxa ka dhacaya oo practical indhaheenna ka dhacaya waxay tahay dadkii fully vaccinated-ka markuu cudurku ku dhaco boqolkiiba 5 ayaa laga yaabaa inuu cusbitaalka dhigo ay u seexdaan oo 99% aysan maxaan ku waxba arkeen halka dadka aan weli talaalka aan qaadan oo unvaccinated dadka aan talaalka aan qaadan boqolkiiba 95 ka badan ay yihiin dadka cudurku ku dhacayo cudurka u seexanaya cusbitaalada ama u dhimanaya ama oxygen u baahanaya waqtigan la joogo waqti xaadirka gobolada mareenka daad la socotaan wada arki doontaan ama aad follow gareynaysaan maxaa newska xaarintaas ka dhacaysa annagoo indhaheenna arkayna waxay dhacayaan waa ku dheeraada waxaan ku soo xirayaa monitor in vaccine-ka logisticada wadankeena wadan iska masaakiina waxyaalo waxay noogu imaanayaan deeq marka waxaa loo baahan yahay dadku inay access u helaan degmooyinka keliyaha fiirna muqdisho iyo garoowe iyo hargeysa keliyaha fiirna tuulooyinkii bay dadkay jiraan magaalooyinkii yara bay jiraan dadkaasi loo gaarsiin lahaa waa loo baahan yahay cidda u maqan wadankana waa dowladaha sheegta ee federaalka dowladda wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka ee dowladaha xibnaha ka ah iyana xil saaran weeyaano waxaana loo baahan yahay biidnillaah inay xilka ka soo dhalaalaan storage-ka iyo supply-ga waa very important dadka in la tababaro dhaqaatiirtiinan iyo bahdiinan caafimaadka oo xitaa ay ku jiraan community health workers-ka sidii loo tababar lahaa waa very important dadkan handal garaynaya talaalka ee dadka maxaan ku radaa waa aad bay muhiim u tahay haddii ay jiraan baahi xaggaas fadlan nala soo socodsiiya si aynu wixii aynu markaa awoodi karayno aan wax uga qabanno arrintaa waxaa loo baahan yahay dadka la aamino ee messenger trusted messengerka loo yaqaano culamada maxaan ku radaa siyaasiyiin kole ma dhahayo laakiin dadka ixtiraamka leh hadday noqoto isimada iyo kaaba qabiilada dadka maxaa la dhihi jiray duubabka ah cidday bulshadu aaminid hooyooyinka dadka la aaminsan yahay inay run sheegayaan hadalkooda la qaato dadkaas in loo isticmaalo iyagoo ay bilaabaan iyagoo qayb ka noqdaan oo ay markaasaas ummaddan loo gaarsiiyo maxaa yeele waddankeeya waa wax 2% ma gaarsiisna talaalka qaadashadiisa talaal badan oo laydin keenana waa dayacdeen dadkaygow talaal badan oo laydinkugu deeqay waa dayacdeen dadka idin keenay way og yihiin inta idin siiyeen iyo inta aad gudbiseen resource-ka haddii lagu siiyey ka soo qaad 100 ilaa 200 oo kun oo doos lagu siiyey 200 oo kun oo doos lagu siiyey oo aadna 100 kun ba aadan hayn ama wax ka yar aad haysid oo tirada percentage-kaaga 1 iyo 2% u yahay oo meelaha qaarkood ay saxtaa garanayeen wax ay talaaleen wax kale runtii waxay noqonaysaa dowladnimada aynu rabno iyo nidaam iyo caalamkan 2021 ka nool waxa weeyaan wax aan loo maqli karin weeyaan dibadaasaanu idinka joognaa waana idinla soconnaa maxaa yeelay akhbaartiinu waxay taallaa hay'adda caalamka oo qaabilsan caafimaadka maraykanka CDC-da waxay taallaa ilaah waa ku roon yahay John Hopkins meel kasta iyo wasaaradda caafimaadku iyana maalin kasta noo soo gudbinaysa xaaladdu siday tahay marka saasaanu ula soconnaa waxaan jeclahay dadka iyagu inay intaasi ay maxaan ku rahdaa aan ku soo gabagabeeyo muhiimadda aan ka lahaana waxay tahay oo aan mar kastaba isku dayayo anigu in wax kasta oo dadka iyaga wax taraya oo looga hortegi karo dhib ku imaanaya dadkeenna oo caafimaadkooda kor u qaadaya xaaladda ay ku nool yihiin ee bulsho ee caafimaad iyo bulsho wanaajinaya noloshooda iyo nolosha lifespan-kooda ama cimrigooda dheeraynaya wanaagooda ka shaqaynaya cudurrada yaraynaya quality of life maxaan ku rahdaa sare u qaadaya in aan ka shaqeeyo markastaan idinla wadaago hadday noqoto talaal hadday noqoto cudurrada kale sidaasaan howshu ay tahay aanna mishinkeennu uu yahay
ديننا الصومالي health board وان مقعد ku hadlayo anigoo maxamed aadan cali waxaan idin leeyahay intaas baan caaway idin kugu talagalay wixii su'aalaha wixii tala iyo tusaaleyna fadlan hayga baqiilina nala wadaaga noo sheega haddii barnaamij noocan oo kale uu idin anfacayo ama aad danaynaysaan fadlan waanu awoodi karnaa anagoo kala fog inaynu kala faa'iidno waxaan aad ula hadlayaa dhalinta da'da yartahay dhalatay sanadihii ugu dambeeyey 30 sano ugu dambeeyey runtii aad baan ugu faraxsanahay iyadoo xilligaa lagu jiro inaad wax barateen oo aad maantay dadkii caafimaadka bulshada ka shaqaynaya aad tihiin waxaad ogaataan waxaa dhici karaysa waxyaalaha qaarkood ood u baahan tihiin oo ay dhici karayso dad kaloo idinka fog in ay awoodi karayaan haddii taa ay jirto fadlan nala socodsiiya si aynu isu gargaarsanno si ummadayada ay maxaan ku rahdaa u badbaado intaas iyo wabillahi tawfiiq wasalaam